Salaamu calaykum kusoo dhawaada maanta filim naxdin leh 2012 oo la magac baxay boqolaal hektar oo dhiig ah. Filimkeenu wuxuu ku bilaabmaa nin lagu magacaabo Reg Morgan oo raadiyaha ka dhageysanaya gaadhigiisa. Wuxuu la kulmay bas shil galay. Wuu istaagay si uu u hubiyo in dadkii saarna ay fiican yihiin. Wuxuu helay meyd rakaab fadhiya dhanka hore ee midig. Wuxuu u jiiday dhinaca gaadhigiisa. Waxaa soo baxday inuu maamulo shirkadda bacriminta dhiigga iyo lafaha oo u isticmaala jirka. Muuqaalka xiga waxaan aragnaa nin la yiraahdo Wesley iyo gabar la yiraahdo Sophie. Labadoodaba iyagoo socda waxay arkeen goob shil ah oo aan la helin wax meyd ah oo ay ku sawiran yihiin dadkii dhintay. Iyagoo yaaban oo dhaqaaq leh. Kadib haweeney da' ah ayaa u timid si ay ula kulanto. Intaas kadib waxaan aragnaa nin lagu magacaabo James oo ay saaxiibo yihiin Sophie oo isku dayaya inuu gaadhiga hagaajiyo. Waxaa yimaada Sophie iyo Wesley. James ayaa u soo jeeday inay u oggolaadaan gaadhiga inuu qaboojiyo, laakiin Wesley ayaa go'aan ku gaaray inuu sii wado. James wuxuu damcay inuu u dhowaado Sophie, laakiin gacmihiisa iska qaada umana jawaabto. Wesley wuxuu arkay haweeney da' ah oo gaadhi wadata. Wuxuu damcay inuu joojiyo si ay u caawiso, balse ma istaagin. Waxay go'aansadeen inay lugeeyaan. Waxaan aragnaa Reg oo wata gaadhigii uu meydka geliyay, iskuna dayaya inuu u joojiyo oo aakhirkiina uu istaagay. Waxay weydiiyeen haddii uu u wadi karo halka ay u socdaan. Sayidhi ma qaadi karo oo dhaqaaqay. Ayaa maskaxdiisa dib ugu noqday si uu u soo qaado. Reg wuxuu ka codsaday inay cabbaar sii joogaan inta uu jidka ku soo qoriyay qaar ka mid ah bacriminta uu siday. James iyo Wesley waxay go'aansadeen inay ku sii nagaadaan halka Sophie ay fadhiisato xagga hore. Wesley wuxuu go'aansaday inuu walax qaato inta lagu jiro jiridda. Sophie oo isbartay Reg midba midka kale wuxuu ka hadlayaa mustaqbalkiisa. Sophie waxay ka hadlaysaa sida ay uga timid waddanka. Waxay isku dayaysaa inay noqoto gabar wanaagsan. Kuleylka waqtiga oo aad u daran. Wesley iyo James oo ka hadlaya qorshaha soo jeedinta Sophie. James ayaa Wesley tusay faraantiga uu doono inuu ula soo jeediyo. Isagoo ka hadlaya wuxuu jir bini'aadan ka helaa jiridda. Iyagoo ka fikiraya wuxuu ku samayn lahaa. James ayaa u sheegay inay u baahan yihiin inay jiidaan. Wesley wuxuu bilaabay inuu ruxo gaadhiga si uu u jiido, laakiin Reg wuu ka walaacay. Iyagoo ka naxsan waxay arkeen. Sophie ayaa ka baryaysa inuu u oggolaado si ay u helaan xoogaa hawo ah. Reg wuxuu u socdaa gaadhiga gadaashii isagoo iska dhigaya inuu hawo siinayo, balse dib ayuu ugu soo laabtay gaadhiga. Dib Landisay Reg walaalkii waxaa soo wacay nin lagu magacaabo Charlie kaasoo ka cabanaya inuusan helin gaarsiinta. Wuxuu u sheegayaa in uusan Reg ag joogin uu gaarsiisan yahay waddada, laakiin wuxuu u sheegayaa Charlie inuu dib u wici doono sababtoo ah wuxuu arkay Reg oo wata gaadhiga xamuulka ee dhiigga ah. Wuxuu isku dayaa inuu soo jiito Sophie, laakiin waxay ku cabanaysaa inuu sii daayo Wesley iyo James. Landisay ayaa yimid si uu u weydiiyo waxa dhacaya, iyo Reg oo Sophie ku riixay qol. Wuxuu u faahfaahinaya cidda ay yihiin oo u sheegay inuu u keenay si ay ugu isticmaalaan bacriminta cusub ee isku darka. Landisay ayaa ka cadhaysan in Reg uu sii wadi doono inuu sameeyo wax sidan oo kale ah isaga oo aan ogeysin isaga, lagana yaabo in la qabto Reg. Wuxuu Landisay u sheegay in isku darka hore ay ka sameeyeen meydadka ay shilkii gaadhiga ka heleen ay siiyeen macaamiishooda koowaad. Haddii ay sameeyaan bacrimin cusub iyagoon isticmaalin dadka, laga yaabo inay waayaan macaamiishooda, taasoo ka dhigaysa in Landisay uu oggolaado. Landisay ayaa horey ugu socda si uu u soo ururiyo maxbuuskii James iyo Wesley. Waxay isku dayeen inay baxsadaan iyagoo weeraray Reg. Landisay se way ku jabiyeen, waxay ku xidheen maxaabiista qashinkooda. Landisay wuxuu wacay Reg si uu ula yeesho wadahadal. Waxay sii wada hadlaan in muddo ah wadahadal ayay yeeshaan. Landisay wuxuu go'aansaday inay isticmaali doonaan ilaalkii jirka ee jidka laga helay si ay u sameeyaan isku dhaf cusub. Wesley wuxuu isku dayay inuu gooyo, laakiin walaalaha ayaa soo galay oo bilaabay inay ka shaqeeyaan isku darka cusub. Wesley iyo James oo isku dayay inay qariyaan mindida si isaga jaraan. Qofka ay ku bilaabayaan weli uu nool yahay, laakiin Landisay waxba dan uma aha oo way sii wadeen hawshooda. Si kastaba ha ahaatee, taasoo naxinta Reg, Landisayna uu bilaabay dhammaadka dabeecadda oo la ogaaday heerar iyadoo loo marayo saqafka. Reg ayaa soo jeedinaya inay isku daraan bacriminta iyo tii hore ee Charlie ee gaadhsiinta, laakiin Landisay ayaa sheegay inuu u baahan yahay hal qof oo kale si ay u dhammaystiraan. Waxay go'aansadeen inay isticmaalaan. Wesley wuxuu helay waddo uu ku baxsado oo uu xado gaadhigii ay wateen. Reg ayaa iscelin kari waayay. Landisay wuxuu go'aansaday inuu ka daba tago. Reg wuxuu wacay eedadii oo lagu magacaabo Nancy. Wuxuu go'aansaday inuu ku soo laabto shaqada. Sophie waxay isku dayday inay la hadasho. Waxay isku dayaysaa inay duubsato ay waqti la qaadato. Reg iyo Sophie waxay bilaabeen inay jacayl isku qaadaan, isagoo hor jooga James silsiladana ku xidhan. Waxay go'aansatay inay joojiso qorshaheeda, waxayna ugu yeedhay magac bahdil. Wuxuu ka soo saaray inay Wesley xidhiidh la leedahay, ayna xidhiidh la leedahay James. Kadibna wuu ka baxaa. James wuxuu eegayaa Sophie wuxuuna cambaareeyaa Reg, laakiin waxa uu sheegtay in Reg uu yidhi hadal aan micno lahayn oo ay isku dayayso in ay meesha ka saarto. Sophie waxay kolba dhinac ka eegtay waxay isaga goyso si ay uga baxsato meesha. Waxay isku dayaysaa qaabkii ay uga baxsan lahayd daashka. Kadib waxaanu aragnaa Wesley oo u baxsanaya meel u dhow tuulada beeralayda ah si uu u helo caawimo isagoo aan ogeyn inay meeshu xidhan tahay, iyadoo aysan jirin cid halkaa joogta. Landisay ayaa gaadmo ku soo rogay isagoo qori wata. Wesley wuxuu helay daraq uu ku qaraaco, wuxuuna u orday gaadhigii. Wuxuu helay furihii wuuna la soo baxay. Wesley wuxuu dib ugu laabtay tuuladii beeralayda. Aad buu u dheereeyay si wax u sameeyo.
ugu dambeyn wuxuu helaa meel cidlo ah isagoo yaaban wuxuu sameeyana garan la. Muuqaalka xiga waxaanu aragnaa Reg oo fiirinaya sawir uu ka qaaday gabar la yidhaahdo Bexy, balse isagoo cadhaysan ayuu ka fufujiyey dhammaan sawiradii. Wuxuu u soo baxay inuu faas qaato uu ka burburiyo bocorkii Lindsay ee qaaliga ahaa, wuxuuna dib ugu noqday shaqadiisii. Isla markaana Sophie ayaa u sheegtay Jamie inuu joojiyo inuu ku eedeeyo dembiga, balse uu diiradda saaro sidii uu u heli lahaa Jameska xorta. Ma maqlin, laakiinse wuxuu weydiiyey sababta ay u khiyaantay. Waxay go'aansatay inay hadasho, balse wuxuu go'aansaday in aanu dhageysan. Waxay u sharaxday inay ku daasho inay ku noolaato nolol kaamil ah. Waxay u sharaxaysaa inay u baahan tahay in la fahmo. Muuqaalka xiga, booliis ayaa u diiday Lindsay inuu si degdeg ah u ordo. Waxaa soo baxday in Lindsay uu garanayo booliiska laguna magacaabo Burke ayaa u sheegay Lindsay inuu helay gaari shil galay meel aan sidaa uga sii fogeyn, balse uu waayay darawalkii baabuurka. Wuxuu weydiiyey inuu waxyaabo la ku arkay agagaarka. Lindsay ayaa sheegay inuu aanu waxba arag. Labadooduba waxay ku guda jiraan hadallo yaryar. Burke ayaa sheegay inuu maqlay xayeysiinta shirkadooda oo ah mid qosol leh. Burke ayaa go'aansaday inuu ka tago, laakiin halkan wuxuu ka dareemaa waxoogaa buuq oo ku dhex jira baabuurka. Wuxuu weydiiyaa Lindsay wuxuu ku macneeyey inuu qabtay qaar ka mid ah wadooyinka shilalka. Burke ayaa fuulay si uu u baxo. Wesley ayaa ku baaqay in la caawiyo, ayaa ku amray inuu furo. Burke ayaa ka helay Wesley, wuxuu u sheegay inuu wici doono caawimaad. Lindsay ayaa weerar ku qaaday. Sophie James waxay isku dayaan dhaqdhaqaaq si ay uga baxsadaan. James wuxuu u dhawaaday inuu qarqiyo. Reg wuu soo galay. Sophie waxay isku dayaysaa inay baraarujiso James. Reg ayaa aamusiyey una ogolayn inay hadasho. Reg wuxuu sheegay inuu isbedelay lana hadli doono walaalkii. James ayaa silsiladaha iska furay isla waqtigaa, isagoo Reg meel soo saaray isagoo ka badbaadiyey silsiladii lulmanayay. Wuxuu ku yidhi Reg eray aan habboonin, taasoo ka caraysiisay Reg oo uuna ugu neceb yahay. Reg dharbaxa ayuu ku dhuftay James. Lindsay ayaa dib u soo laabtay, wuxuuna u yeedhay Reg u sheegay inuu baabi'iyey bocorkii. Damcay inuu istaago una sheego walaalkii inuu wax ku filan yahay. Wuu garaacay, balse wuxuu u sheegay inuu daryeelo. Kadib waxaa ku jira jirkiisa. Reg ayaa furay si uu u helo Wesley si uu u toogto, laakiin wuxuu seegay saamaynta. Dagaal baa dhex maray. Wuxuu go'aansaday inuu labadooduba isku xidho. Nancy ayaa soo booqata, iyaga iyo baabuurkeeda wadata. Reg wuxuu siiyey Wesley miro gacmeed si uu ugu qabto dhaawiciisa. Wuxuu isku dayaa inuu Lindsay uu ka soo saaro jirida. Wuxuu u ballan qaaday inuu dibadda u soo saarayo, wuxuuna u sheegay Wesley inuu ku nasto goobta. James ayaa weydiiyey Sophie faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daacadnimadeeda Wesley, laakiin waxay isku dayday inay u sheegto ka guuro. Dhanka kale, Lindsay wuxuu la hadlayaa eedadii Nancy waxay weydiisay inay aragto Reg, laakiin wuxuu u sheegay inay sugto. Dhanka kale, Wesley ayaa ka cudur daarta inuu Reg gafay. Lindsay wuxuu isku dayayaa inuu dhaqso uga tago guriga, balse waxa uu sheegtay inay dhaqso u baxayso oo ay u timid inay bocorka ku soo shubto jirida. Wesley oo ka hadlaya wax laga qaban karo gacantiisa, isla markaana siisa rajo inay meeshana ka bixi doonaan. Nancy waxay isku dayaysaa inay dejiso Lindsay oo ay ka qaaddo culayska oo dhan. Taleefan ayaa la soo wacay, balse Nancy waxay u dhaaftay dhinaca mushinka. Qolka jiifka, Sophie waxay heshay taleefan gacan oo isku dayday si ay caawinaad u wacdo, laakiin Wesley iyo Reg oo waxba tarin waxay raadinayaan waddo ay kaga baxsadaan jirid oo ay caawiyaan Sophie James, halka iyaguna ay rabaan is xoreeyaan. James wuxuu la dagaalamay Wesley si uu uga faa'iidaysto saaxiibtiis. Reg wuxuu dhammaantood ka caawiyaa inay isdejiyaan. Wuxuu u sheegaa inay dhammaantood dhaqaaqaan. Reg wuxuu aadaa si uu furaha u soo helo. Wuxuu sameeyey. Sophie ayaa aad ula yaabtay. Reg wuxuu soo galay guriga, wuxuuna ogaaday inay Nancy joogto. Nancy waxay kala hadashaa Lindsay wax ku saabsan Reg oo qoto dheer. Wuxuu helayaa midba midka kale oo isqabtay. Dhanka kale, Wesley wuxuu helay eygii Nancy oo gacanta ka go'an, isku dhex yaacay, iskuna dayay inuu qabto. Reg wuxuu isku dayay inuu ka haysto gaadhiga, wuxuuna raadinayaa furaha gaadhiga. Waxaa soo galay eyga oo gacan la, halka Lindsay iyo Nancy ay sheekaysanayaan. Wuu ka tuuraa iyadoo Nancy ay iska dhigayso inay qaylinayso. Wesley ayaa u soo galay, balse Lindsay ayaa toogtay. Reg ayaa qolka soo galay, waxayna caqabad ku noqotay Lindsay oo wax walba shaaca ka qaaday. Wuxuu u sheegay Nancy inay wacdo booliiska, una sheegto in walaalaha Morgan ay isku soo dhiibayaan. Nancy waxay waday inay isku daydo inay u yeerto booliiska. Lindsay wuxuu isku dayay inuu dhammeeyo, sidoo kale wuu ku guuldareystay oo Reg ayaa taa ka faa'iidaystay oo weeraray Reg oo galay daashka. Wuxuu galay daashka si uu ugu sheego inuu helay furihii, balse wuxuu helay daadad faaruq ah. Lindsay oo gaadmo ku haya. Kadib labadoodu waxay bilaabeen inay dagaalamaan. Reg wuxuu helay dariiq uu ku qaraaco Lindsay, laakiin Lindsay wuxuu helay hab uu dib ugu soo kaco oo uu Reg ku xidho mashiinka ay farsameynayeen ee bacriminta. Wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo Reg marba mar ka dambeysa soo gasha muunadda bacrimin cusub. Sophie ayaa timaada, waxayna isku dayday inay istaajiso. Waxayna riixeen oo ayna tuureen Lindsay, waxayna ku dhex tuureen mashiinka. Reg wuxuu soo saaray faraanti uu ka helay Lindsay